Tan waa sheekadii labada walaal ee cadowga isku ahaa ee aasaasay Adidas iyo Puma. Sidee laba walaalo cadow isku noqdeen? Ugu dambeyntiina waxay aasaaseen shirkadaha ugu wanaagsan dunida ee kabaha soo saara. Inteena badani ma oga arrintani. Aasaasayaasha Adidas iyo Puma waxay ahaayeen walaalo. Adidas iyo Puma waa mid ka mid ah shirkadaha kabaha sportiska ee ugu weyn ee dunida. Balse labada shirkad waxay ka yimaadeen hal qoys. Kan waa Adolf Dassler wuxuu aasaasay Adidas. Kan waa Adolf Dassler aasaasaha Puma. Labada walaalo waxay ku soo koreen qoys faqiir ah oo Jarmalka ku noolay amba deganay. Aabahooda wuxuu ka shaqaynayay warshad kabo. Sidaa darteed walaalaha waxay wax badan ka yaqaaneen ganacsiga kabaha markii horeba. Isla markiiba qoyska Dassler waxay bilaabeen inay iibiyaan kabo slippers ah oo gacanta lagu sameeyay. Inkastoo kabahooda ay ahaayeen kuwa guriga lagu sameeyay, si xad dhaaf ah ayay caan ugu noqdeen magaalada waqtigaas. Sidaa darteed walaalaha reer Dassler waxay bilaabeen shirkad kabaha sportiska soo saarta. Shirkadaas waxaa lagu magacaabay Dassler Brothers Sports Shoes. Shirkadda waxay ku taalay magaalada yar ee Hesse-Genoa. Adolf Dassler waa maskaxdii hal abuurtay kabaha. Wuxuu ahaa midka kabaha nashqadeyn jiray, halka Rudolf wuxuu ahaa midka suuq geyn jiray. Shaqadiisu waxay ahayd inuu kordhiyo iibgeynta kabaha. Inta lagu jiray ciyaaraha Olombikada 1936, walaalaha reer Dassler waxay ku qanciyeen ciyaaryahankii halyeeyga ahaa ee Jesse Owens inuu xirto kabahooda. Owens wuxuu ku guuleystay 4 bilood ee tartanka. Tan ayaana ka dhigtay walaalaha reer Dassler kabahooda kuwa dunida oo dhan caan ka noqday. Balse intii ay kobcaysay guusha, walaalaha xiriirkooda wuu joogsaday. Sababta dhabta ah ee dagaalkooda muusan cadeen. Waxaa lagu xantaa labada walaalo inay kala xadeen midba kan kale jaceylkiisa. Waxaa inta badan lagu xantaa inay isla jeclaayeen hal naag. Kadib dagaalka labaad ee dunida markuu dhamaaday, walaalaha reer Dassler way kala baxeen. Adolf Dassler wuxuu bilaabay shirkad kabo oo asiga leeyahay oo lagu magacaabo Adidas, oo ah magaciisa oo la soo gaabiyay Adidasler. Rudolf shirkadiisa wuxuu ku magacaabay sidoo kale Rudda. Balse goor dambe magacaas wuxuu ku bedelay Puma sababtoo ah ku dhawaaqistiisa ka wanaagsaneed. Labada shirkad xifaaltan ayaa ka dhex bilowday. Dadka inta ugu badan ee Hesse-Genoa waxay u shaqaynayeen middood labada shirkadood ee kabaha. Inta ugu badan ee magaalada waxay u kala qaybsameen labada walaalo. Shaqaalaha Adidas iyo Puma looma ogoleen midba kan kale inuu la hadlo. Labada shirkadood midba tan kale ayay dacweynaysay dhowr mar in ka badan sanado. Labada walaalo marna dib uma heshiin. Labadooda waxay dhinteen 70meeyadii, xitaa inkastoo lagu aasay qabuuro isku mid ah. Waa la kala fogeeyay meedadkooda midba kan kale weliba fogaansho macquul ah. Xitaa inkastoo labada shirkadood ay aad u weynaayeen, haddana Adolf ayuu ahaa midka tartanka ku guuleystay marka ganacsiga la joogo. Adidas shaqaalaheeda waxay gaarayaan 40,000 hadda, halka Puma ku dhawaad 10,000 oo shaqaale. Adidas qiimaheeda wuxuu ahaa 2019 $16.48 bilyan, halka Puma qiimaheeda wuxuu ku taagnaa $4 bilyan. Sidoo kale taalada Adolf Dassler ayaa ku taala magaalada Hesse-Genoa. Xitaa haddii ay dhinteen walaalaha reer Dassler, weli colaad ayaa ka dhaxaysay ilaa markii dambe 2009 Adidas iyo Puma dib ayay u soo celsheen xiriirkoodii. Waxay ciyaar kubadda cagta u qabteen shaqaalahooda. Casriga cusub ee kabaha wuxuu ku bilowday ciyaartaas The New Era of Brand Shoes.